hanjabaadii oo laga dhabeeyay dunida oo wajahaysa khatar dhaqaale oo aad u weyn kadib weerarka xuutiyiintu ay ku burburiyeen 4 ka mid ah fiber optic mara badda cas iyo gacanka cadmeed Soomaaliya iyo dalal kale oo geeska Afrika ah oo wajihi kara musiibo internet oo horay aan loo arag haddaba maxaanu kala soconnaa howlgalka ay dhawaan xuutiyiintu ku qaadeen xargaha fiber optiga argosigu waa uu noocyo badan yahay xuutiyiintu kama baaqsan sida ay uga go'an tahay in ay uga argutaan duqeymaha cirka ah ee uu Mareykanku hogaaminayo ee lagu bartilmaameedsanayo Yemen weeraradan ayaa jawaab u ah in ka badan 30 weerar oo xuutiyiintu ay ku qaadeen maraakiibta Israa'iil u mara badda cas iyo gacanka cadmeed weeraradaas oo ay xuutiyiintu sheegeen in ay ku taageerayaan Falastiiniyiinta ku sugan Gaza xargaha la weeraray ayaa u kala socday dalal ay ka mid yihiin Djibouti iyo Sacuudiga dawladda Yemen oo ay aqoonsan tahay qaramada midoobay ayaa ka digtay in xuutiyiinta ay awoodaan burburinta xargaha isgaarsiineed ee muhiimka ah ee badda oo ay ku jiraan khadadka internetka ee ku teedsan badda cas ee isku xiraya Afrika, Aasiya iyo Yurub waxa la sheegay in kooxdan ay si fudud u helaan maab muujinaya halka ay iska galaan xargaha isgaarsiineed ee badda hoosteeda yaala kuwaas oo mara meel u dhow xeebahooda gaar ahaan marinka Baabalmandab oo balliciisu uu dhan yahay 20 mayl oo u dhiganta 32 kiiloomitir oo kali ah kalsoonidii khubarada reer galbeedka ee ay ku qabeen in aysan xuutigu awoodin waxyeelaynta xargahan ayaa meesha ka baxday hadda si kastaba xargaha fiber optiga ee xambaara 17% internetka adduunka waxa ay ku yaalaan gunta badda ee 100 mitir ka hooseeya oogada dhulka taas oo ka dhigaysa in ay tahay mid ku adag quusayaashu in ay si fudud ku gaaraan Mareykanka iyo Ruushka ayaa la aaminsan yahay in ay awood u leeyihiin in ay jaraan fiilooyinkan maadaama ay haystaan maraakiib awood u leh in ay gaaraan bartamaha badda kadibna la isticmaalo maqasyo waaweyn si ay u gooyaan fiilooyinka yaala sagxadda badda taliyihii hore ee ciidamada badda Ingiriiska Admiral John Gower ayaa ka sheekeeyay suurtagalnimada in xuutiyiintu ay waxyeeleeyaan fiilooyinkan wuxuuna tilmaamay in aysan awood badanba u lahayn in ay waxyeelo gaarsiiyaan fiilooyinkaas hase yeeshee waxay u muuqataa in sarkaalka Ingiriisku uu ka marin habaabay halka ay xuutiyiintu ka heleen awoodooda military oo ah micnaha Iiraan xuutiyiintu waxa ay leeyihiin xulafo weyn oo ah Tehran xuutiyiinta oo taageero ka helaya taliska islaamiga ah ee ciidanka ilaalada kacaanka waxa uu dhisay kayd difaac oo isugu jira gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn 8 sano ee la soo dhaafay waxa ay bartilmaameedsadeen Sacuudiga Imaaraadka Israa'iil iyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka iyo Britain sidoo kale markab kasta oo ay uga shakiyaan in uu xiriir la leeyahay Israa'iil Mareykanka ama Ingiriiska sida ay aaminsan yihiin khubarada Ameerikaanka haddii Iiraan ay saacido xulafadeeda xuutiga in ay waxyeeleeyaan fiilooyinka internetka ee badda hoosteeda waxa ay noqon doontaa tallaabo halis ah oo ay qaado Tehran Iiraan iyo Mareykanku midkoodna ma doonayo in uu midba midka kale la galo dagaal ballaaran arintaasna si cad ay u shaaciyeen labada dhinac khilaafka hadda u dhaxeeya Mareykanka oo dhinac ah iyo Iiraan iyo kooxaheeda guud ahaan bariga dhexe oo dhinaca kale ah ayaa hadda maraya heer aad u sareeya Mareykanka ayaa digniino dhowr ah siiyay Tehran ka hor inta uusan duqeymo ka geysan saldhigyada maleeshiyaadka ay Iiraan taageerto ee Ciraaq iyo Suuriya taas oo u ogolaatay Iiraan iyo saraakiisheeda muhiimka ah in laga saaro halkaas waana cadeyn ku tusinaysa sida Mareykanku uu uga heebaysanayo jamhuuriyadda Iiraan waxa ay leedahay tobaneeyo gujis oo ka howlgala gunta hoose ee badda waxaana loo badinayaa in ay gacan ka geysteen weeraradan lagu qaaday xargaha internetka ee loo yaqaano fiber optic haddaba waa maxay fiber optic dunidan aynu joogno xogta iyo macluumaadka waxa ay noqdeen aasaaska nolosha iyo dhaqdhaqaaqa aadanaha ayada oo aynu ku tiirsanahay dhan kastaba ha ahaato isgaarsiinta iyo xiriirka bulshada shaqada ganacsiga waxbarashada iyo madadaalada haddaba si xogtan iyo macluumaadkan loogu gudbiyo si habsami ah oo degdeg ah waa in la helaa kaabayaal xoogan oo wax ku ool ah oo isku xira dhinacyada wax loo kala wareejinayo
waxaana halkaasi ka dhalanaya doorka xargaha badda hoosteedii mara ee fiber optic oo ka mid ah kaabayaasha asaasiga ah ee shaqadan. fiber optic-ga waxaa lagu tilmaamaa hababka gudbinta xogta oo loo isticmaalo in lagu gudbiyo macluumaadka ayada oo loo marinayo badaha dhexdooda. fiilooyinkan waxa ay ka samaysan yihiin fiilooyinka iftiinka ee khafiifka ah. fiber optic-ga waxa ay ka dhigan yihiin teknolojiyadda muhiimka ah ee xilligan lagu jiro, muhiimkana uu ah isgaarsiinta casriga ah, waxayna daboolayaan baahida sii kordhaysa ee loo qabo kala gudbinta xogaha. fiber optic-ga badda hoostiisii mara waxa ay leeyihiin faa'iidooyin badan, waxaana ugu muhiimsan xawaaraha, awoodda iyo kalsoonida lagu qabo oo ah mid aad u sarreysa. faa'iidooyinkaasi aanu soo sheegnay dartood, fiilooyinka fiber optic-ga ee badda hoos mara waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan gudbinta xogta iyo internetka, waxaana loo arkaa laf-dhabarta internetka xilligan. waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan sidoo kale isku xirka qaaradaha iyo dalalka iyo kor u qaadista isgaarsiinta iyo internetka. fikradda u kala gudbinta fiilooyinka internetka ee biyaha hoostooda waxa ay bilaabatay 60-meeyadii iyo 70-meeyadii qarnigii tegay, laakiin mashruucii ugu horreeyay ma uusan hirgelin ilaa laga gaaro 1988. mashruucani waxa uu ahaa fiilada isgaarsiinta ee fiber optic oo lagu magacaabi jiray TAT-8, kaas oo Mareykanka ku xiray qaaradda Yurub, gaar ahaanna dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska, wuxuuna ka dhignaa tallaabo muhiim u ah horumarinta isgaarsiinta badda. intaas wixii ka dambeeyay waxaa la hirgeliyey xargo badda hoosteedii mara oo badan oo isku xira qaarado iyo wadamo kala duwan, waxaana dhererka xargahaasi maanta uu gaarayaa ilaa 1.4 milyan oo kilomitir. fiber optic-ga badda hoostiisii mara waxa ay la kulmaan caqabado sida cillado, waxyeelo iyo khataraha deegaanka. cilladaha waxaa laga yaabaa in ay ku dhacaan arrimo dabiici ah sida duufaanada badda, dhulgariirada iyo volkaanooyinka, ama sababo la xiriira aadanaha sida howlaha kalluumaysiga, shaqada dhismaha gudaha badda ah iyo sahminta saliidda. marka cillad ay ku timaado fiilada fiber optic-ga ee badda hoosteedii mara, tani waxa ay keeni kartaa carqalad ku timaada xiriirka wadamo badan oo kala duwan. khatarta ka jirta badda cas ee ay hogaaminayaan kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa saameyn adag ku yeelan karta adeega internetka iyo xog helista ee wadamada Jasiiratul Carab iyo kuwa geeska Afrika dhaca oo ay Soomaaliya ku jirto. laakiin wax kasta waxa ay ku xiran yihiin hadba go'aanka ay qaataan kooxahaasi xuutiyiinta ah oo garab ka helaya dowladda Iiraan. intaas ayaynu ku soo gunaanadeynaa warbixintan tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo diyaarin doono. waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. amaana Allah. halkan waa Itaal Media.